maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Qoryaale ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismayaal fasallo cusub oo lagu kordhin doono markiiska boardingka ee Qoryaale kuwaasi oo qaban qaabadeed iyo fikradoodaba lahaayeen dhalinyaro deegaankaasi ah dhismayaasha saddexdan fasal oo baahi ballaaran u qabay markiiskan Taqwa ayaa waxay farxad gelinaysaa dhalinyarada wax ku barta markiiskan intaasi kadib waxa wafdigan ballaaran oo horkacay barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer محمد محمود يوسف وبحله ay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo loo sameeyay dufcadii labaad ee dhameysay xifdiga Quraanka Kariimka ah ee ka aflaxda markiiskan Taqwa waxaana uu barasaab ku xigeenku ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta markiiskan Taqwa isagoo sheegay inay yihiin kuwa mudan ku dayasho gudoomiyaha degmada Qoryaale Bila Jaamac Muuse ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay kaalinta uu degmadan ugu jiro markiiskan oo soo saaray buu yiri arday ka dhisan cilmiyan iyo aqliyan oo edab iyo asluub leh waxa uu sheegay in maamul ahaan ay ugu deeqeen qayb kamid ah dhulka lagu dhisayo dhismayaasha fasalladan maamulaha markiiskan Jaamac Ali Cabdille ayaa ka warbixiyay muddo kooban oo gaaraysa sanad iyo 8 bilood in markii labaad soo saaray markiiskan arday yar oo korka ka haya xifdiga Quraanka Kariimka isagoo geesta kale ka mahad celiyay dhismayaashan ballaarinta ah ay dhalinyarada deegaanku isku xilqaameen iyo haweenkuba sidii loogu kordhin lahaa markiiskan Taqwa maxadka waxa uu furan yahay adigu waxaan filayaa sanad iyo 8 bilood meelahaas ayuu furan yahay hadafkii loo aasaasana wuxuu ahaa isagoo boodhan ah oo ardadu ay markaa hoygooda iyo cuntadooda iyo waxbarashadooda ay halkan tahay inuu maxadku soo saaro arday aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan baruntii dhisan arday ka kala timi ayaa ku jirta runtii waxa ay hadda marayaan meel fiican bay marayaan dafcadii labaad waa ta maanta Quraanka xifdiday fasaladii waxbarashada loogu bilaabay lahaana waa ta aan rajeynayno insha Allah taala maanta in loo dhagax dhigo inay muddo kooban inoogu dhamaadaan aan rajeynayno marka waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan ha noqoto dhismihii markii hore bilowgii maxadka iyo masaajidkan oo runtii u sabab ahaa maamulaha madaarka Burco Cabdirasaaq Xaaji Siciid ayaa isaguna ka warbixiyay dadaalka iyo juhdiga ay galiyeen sidii markiiskan uu heli lahaa fasallo cusub oo loo kordhiyo waxa uu mahad celiyay haweenka ganacsatada iyo dhalinyarada deegaankan oo kaalin mugle ka qaatay sidii loo hirgelin lahaa fasalladan isagoo ugu baaqay qurbajooga deegaankan inay ka qayb qaataan horumarinta iyo ballaarinta degmada Qoryaale gudoomiyaha ururka Now Deeqa Weydaar Cuqaal iyo Maariye ku xigeenka shirkadda Somtel oo ku hadlayay afka Dahabshiil Group ayaa dhamaantood soo dhaweeyay dhismayaashan iyo munaasabadan qaaliga ah ee lagu abaalmarinayo dhalinyarada dhameysay xifdiga Quraanka iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan ardaydii dhinaca kalena munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay arday dhameystay xifdiga Quraanka Kariimka oo ka aflaxay dugsiga Cabdillaahi bin Mubaarak ayaa lagu qabtay magaalada Burco munaasabadan ayaa waxa uu goreyntii ka hadlay maamulaha dugsigan Cabdillaahi bin Mubaarak waxaana uu ka warbixiyay ujeedada iyo hadaaftii loo aasaasay dugsigan oo ku tilmaamay mid midho dhalay midhihiisii uu soo saaray iyo yoolku hiigsanayna waxay ahaayeen inuu soo saaro waxa weeyaan arday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa xifdisan oo waxa weeyaan ka dhisan akhlaaq ahaan tarbiyad ahaan dhinac walba waxa weeyaan u dhisan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisana waxa weeyaan waa soo saarnay intii awoodayda ahayd waxa iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaal arday waalidiin kuwaasi oo dhamaantood ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay maamulka dugsigan juhdiga iyo dadaalka galiyay ardaydan dhameysay xifdiga Quraanka iyagoo kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda ugu dambeyntii waxa halkaasi shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameystay xifdiga Quraanka Kariimka oo ku soo bandhigay xadiisyo iyo khudbado kale oo ku baxay afafka Carabiga oo ay ka barteen dugsigan Cabdillaahi bin Mubaarak dugsigan Cabdillaahi bin Mubaarak oo wax ku bartaan arday isugu jira hablo iyo wiilal ayaa waxa barayaalka macallimiin khibrad leh Cabsaaq Faarax Cabdillaahi TV qaranka Soomaaliland Burco